isha sarsare ee dowladda federaalka ah ee Ethiopia oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Abiy uu ka baxay ballankii isla markaana uu doqon yahay damiirna uusan lahayn oo dalkiisa uu doonayo inuu burburiyo dadna uu adeegsado oo kaliya uusan doonaynin inuu wadanka u dhinto arintaasi walaa xor leh ay abuurtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna wajiga ay ka fiiqday afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa sheegay inaysan waxba soo kordhinaynin haddii Mareykanku ciidamo u soo diro dalka Ethiopia waxa uu roon inaysan ku fikirin in ciidamo u soo diraan Ethiopia iyagoo meel ay galeen oo ay nabad ka keeneen ma jirto waxaan soo aragnay dalalka Yemen, Liibiya, Suuriya iyo Ciraaq ma jiraan wax ay ku soo kordhiyeen arigu yiri mid kamid ah ee saraakiisha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Ethiopia oo ka hadlayay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia oo Mareykanku uu sheegay inuu ciidamo u soo diri doono si uu dagaaladaasi qayb kaga noqdo isla markaana uu u nabadeeyo Ethiopia dhinaca kale dowladda federaalka Ethiopia ayaa furmaha hore dagaalka u dirtay ciidanka booliiska federaalka Ethiopia si uga qayb qaataan dagaalada ka soconaya gobolada Amxaarada arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dagaalada aysan qayb ka ahayn ciidanka booliiska ah isla markaana dagaalada kaliya ay ku ekaayeen militariga dowladda federaalka Ethiopia waxaa laga yaabaa in dagaalada ay wax iska bedelaan isla markaana natiijooyin markaa hor leh oo guulo ah ay gaaraan ciidamada federaalka Ethiopia maadaama booliisku bahaatan dagaalada ay ku soo biireen dhanka kale dowladda Djibouti ayaa soo bandhigtay maraakiib dagaal oo ay soo iibsatay arintan ayaa u muuqata inay iskaga difaacayso Ethiopia oo haddii wadankeeda uu qalaaso ka dhasho laga yaabo inuu ku soo baaho Djibouti oo ah dal yar isla markaana dhinacyo badan ka hormarsan ayaa Ethiopia xilligan waxa ay sheeda sare kaga daawanaysaa dagaalada diibta iyo dhibta ka abuurmeen oo Ethiopia ka soconaya dowladda Djibouti ayaa xoojinaysa ammaanka guud ee dalkeeda xilli ay dagaalo xoogan ka socdaan dalka dariska la ah ee Ethiopia